الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal khudbadeennu waxay ku saabsan tahay mowduuca ah simaat almujtamac almuslim, calaamadaha uu leeyahay ay leeyihiin bulshada islaamka. waa calaamado ka duwaya oo ka soocaya ummadaha kale, waa calaamado ka turjumaya iimaankooda iyo dhaqankooda wanaagsan, waa calaamado ka turjumaya xadaaradooda iyo horumarkooda iyo ilbaxnimadooda. waxaynu u sheegaynaa calaamadahan iyo tilmaamahan islaamkeennu inoo jideeyey inaynu ku sifaysnaano oo aynu qaadanno, inaynu ku abtirsanno islaamka oo aanu dhaqan inoo noqon tilmaamihiisa iyo muuqaalkiisa wanaagsan aynaan qaadanin sax ma aha. simaadkaas ama tilmaamaha ummadaha shisheeye ha sheegteenbe iyagoo xaqiiqo ah ma laha. waxaa ugu horeeya tilmaamahaas, mujtamaca muslimkii waa mujtamacun multasimun bisharci waannidaam. waa ummadaan fawdo ahayn, waxay doonaanna iska yeelin, laakiin sharciga raaca. sharcigooduna waa ku ilaahay u hibeeyey oo u siiyey iyo diinta islaamka. wixii weydaarsanna ma daneeyaan oo ma qaataan oo kuma dhaqmaan. waxay leeyihiin waxa aynu ku kala baxaynayna kala xukumayaa muxuu yahay? maaha mid qabaa'ilku samaysteen, maaha mid gaaladu samaysteen, laakiin waa mid laga soo qaadanaya ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam. nusuusta qur-aanku arrintaa aad bay uga warramayaan. marna waa layna farayaa, marna waa laynagu ammaanayaa. mar ilaahay uu ina faro waxa uu yihi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. xadhigga ilaahay qabsada waa waxyiga. xadhig buu ilaahay ku tilmaamayoo cidda xadhiggaa qabsataa way ka badbaadaysaa boholaha naarta iyo balaayooyinka iyo mu'aamaradaha shirkiga iyo shaydaanka. mar kale ilaahay waxa uu faray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii ka amar qaadanaysa qabsashada iyo cuskashada sharciga, fastamsik biladii uuxiya ilayk. waxyiga lagu siiye qabso oo cusko oo ku dheg, ku dhaqan weeye. mar kale ilaahay wuuba inagu ammaanay markaynu ilaahay taa ka guddoomanno sharcigiisa aynu ku dhaqanno, aynu iska ilaalinno qushiyeelka iyo fawdada. ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu. qur-aanku taasuu ku celcelinaya dadka aan ammaanayaa waxa weeyaan buu ilahay yihi kuwa intay rumeeyeen iimaanka ka rur sheegay sharciga raacay. mujtamaca muslimka ah ma aha markaa kuwa waxay doonayaan yeela iyo waxa naftooda iyo waxa ila wanaagsan iyo ma aha dhaqankoodu saas ma aha. halkaynu ogsoonnahay ummadaha shisheeye ilaahay sharcigiisa uma hogaansamaana waxa lagu xukumaa waxay doonayaanay rabaan. simaatu lmujtamaci almuslim annahu mujtamacun jaaddun min simaatih. waa mujtamac dadaalaya, mujtamac fadhiida ma aha, mujtamac asxaab albataala aan howlgelaynin ma aha oo caajisa, laakiin waa dad caanku aan intanay ifka joogaan inay dadaalaan. laba arrimood baana dadaalkoodaasi u badan yahoo madharka iyo muuqaalka ka muuqanaya waa laba arrimood, waa cilmi iyo camal. cilmi diiniyay yaqaanaanay caan ku yihiin oo ay ku dadaalaana jaahiliin maaha. cilmiga adduunyada ee anfacayana cid uma daba fadhiistaan, laakiin waa dad muruqooda iyo maskaxdooda maala si ay ummado shisheeye uga maarmaan, siduu nebigu hormuud ugu ahaa, khulafaduna hormuud ugu ahaayeen ummadda. waqul rabbi zidnii cilm qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat. waxaasoo nusuusa ayay ku dhaqmayaanay dhegaysanayaan. cilmiguna waa inuu yahay mid naafic ah
oo ummadda wax u taraya laakiin cilmigaasi haddii aanu ahayn dadka mid wax u tarayo waxyeello ula taagan maya ilaahay bay ka magagelayaan allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaah waxaan kaa magan galay buu nebigu leeyahy cilmi aan waxba anfacayn ummadda maaha loogu faano annaga aqoon leh iyo annaga ayaana daba soconaysaa oo wax idiin sheegayna oo wax idiin samaynayna laakiin waa ummad isku filan aqoonta waxay caan ku yihiin camalka inay camal falaan camal saalix wa huwa hamaratu lcilm cilmigaas samaawigay barteen midhihiisa laga goosanayaana waa camal saalix oy sameeyaan dad caajisiina ama cidlo iska fadhiyo odhanaya aakhiraanu janno ka helaynaa iyo waxaanu ku yidi diilanayno ayaanu ilaahay ka helaynaa ma haddad odhanaya kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun ilaahay baa wuxuu leeyahy waxaydaan samaynayn inaad tidhaahdaan afka ka sheegtaan iska ashahaadataan idinkoo aan camal raacinaynin ilaahay agtiisa cadho weyn bay taas ayay leedahay mujtamaca muslimka calaamadihiisa waxaa ka mid ah annahu mujtamacun mutasaamix oo dhaqankaa la doonaya inaynu hirgelinno ummadahana aynu kaga duwannahay waa dad maxaan xaq u leeyahay kuma dholoolaan oo laabta ma garaacaan laakiin qofku marka had iyo jeer cid wax kaga yimaadaan way iska saamaxaan oo neerfaha saamaxaaddu aad buu u shaqaynayaa qofku had iyo jeer inaanu ahayn mid aargoosta mid ciili iyo cadho ku noola mid cid walba faraha ku fiiqfiiqaya ma ahe waa mujtamac saamaxaad badan nebigooda calayhi salaatu wasalaam nebiga ummadda islaamka horkacaya ummadaha caalamka o dhan ilaahay u soo diray taasuu ilaahay ku ammaanay fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlig naxariis ilaahay uu qalbigaaga dhigay baad ummaddan ku qabatay naxariis ilaahay uu ku siiyey ayaa dadka qulubtooda ku qabatay kugu soo urureen kugu jeclaanayaan walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaannahu waliyun xamiim waxay og yihiin dadka awood inaan lagaga aarsanina saamaxaad iyo caafis iyo soo dhoweyn iyo dulqaad lagu addoonsan karo lagu jahayn karo ilaahayna wuxuu tilmaamay qofka xumaan kugu sameeya waxa uu leeyahay wanaag adugu ku abaalmari si uu saaxiib xeel dheer uu kugu noqdo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam isagaa tusaale inoogu ahaa nimankii aada u dhibay sanadihii uu maka joogay 13 sano dadku ka fadhiyi waaye eriyey maalintuu maka xoreeyey ay addoommo noqdeen kelmaddiisii qaaliga ahayd buuri idhabuu fa antum udulaqaa iska socda waan idin xoreeyey waa saamaxaad meel walba gelaysa oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamka ugu duceeyey raxima allahu mra'an samxan idaa baaca wa ida ishtaraa wa ida iqtadaa allah ha u naxariista buu nebigu leeyay qof ama nin markuu wax iibsanayo iyo markuu wax iibinayo iyo markuu deyn qaadanayo intaba saamaxaad badan xataa dadka aan muslimiinta ahayn saamaxaaddaasay kula socdaan من سمات المجتمع المسلم أنه مجتمع آمن ومجتمع آن إرهابي هين لكن مجتمع الأمن نبت قليا ذا يقال لغوي ماذا أرقاق حسادنا إيمان الله وياشا لغو تقع عدة وحرقاق حساد ضدك كحد قدبت حقه دي عرضه دي ودن كودا بقى ودد كان إيمانك لهين لكنه مضى إسلامك أمن بيعان كويه ويا واحد تلازم كرد حياة يحريد بين أمنهم وإيمانهم إيمانك هذا أمنك فريا هدي إيمانك وكقرم أما أيسكد إذا ومضهنا عبسبا وهلين يسمر كاسو كأجنو إيجا عدي الله صحيح دبا الذين آمنوا ضرب الله مثلا للذين كفروا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وهو ماذا اسكالتنين برواقاء الدنيا اسكهيستي مركاسي دينتي لهي كعماك تاقيني ديدين إلهينا عبسبكو أبو ري أولياء إلهي مركو إلهي أمانة يوحد الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون waxay ku xaqiijinayaan nabadgelyada
sharciga ay ku dhaqmayaan walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab sharciga ay laasimeen ay hirgeliyeen ayay ku xaqiijinayaan nabadgelyadooda idan ma aha dad dhexdooda cabsi isku abuura ummadaha kalena cabsi ku abuuree waxay la socdaan ay la taagan yihiin amni iyo nabadgelyo xataa markay jihaadkooda oogayaan ee alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar wanaagoo la isfaray iyo xumaantoo la isu diiday markay acmaashaa wadaan amnigaa lagu xaqiijinayaa idan astaamihiisay ka mid been baanay ku sheegayaan shisheeyuhu marka ay leeyihiin ummadda islaamka ay argagixiso ku sheegaane magacay lahaayeen bay ku waaridayaan waa mujtamacun mutaraaximun mutakaafil dad isu naxariisto oo isxil qaada way xagga baahiyahooda marka la eego oo cid bay lahsan ama ku dhibaataysan dhexdooda ma eegtaa damiirkooduna ma saamaxayo mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kamathali ljasadi alwaaxid nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiintii marka la eego xidhiidhkooda naxariistooda isjacaylkooda waxay ka dhigayin jidh keliya marna wada xanuunsanaya marna wada caafimaad qadaya fi lafraax walaxzaan dhibka iyo dheefta iyo farxadda iyo naxdintaba way wada leeyihin isku jidh keliya ilaahay uu ku tilmaamay naxariista allaha suwar waa suurado badan iyo tilmaamo badan ayaad ka arki karaysaa haddii aada baadhbaadho waxaad arkaysaa dadkii isuguba dhowaa ayaa ilaahay qolada kale uu farayaa inay isu naxariistaan waladkiibaa ilaahay uu qur-aanka dhexdiisa aada uga hadlayaa inuu waalidka u naxariisto waalidkiina siduu carruurtiisa ugu naxariisan lahaa sidoo kale xaaslaydii ayaa ninkiina gaar loo farayaa naxariista ruuxii dumarka ahaydna gaar wakadalik bayna alarxaam dadkii aqaaribta ahaa xuquuqda ay isku leeyihiin baa sharcigeen qolada kale uu farayaa wakadalika alkibaaru waasigaar qofkii yaraa in loo naxariisto kii weynaana la weyneeyo wakadalika alaytaam walfuqaraa walmasaakiin agoomihii iyo bulshadii baahnayd intee oo aayadood baa ka warramaya naxariistooda waa arrimo aan laga helaynin dadka bilaa iimaanka ah waa mujtamacun mutanaasix simaadka iyo calaamaduhu mujtamaca muslimkii leeyahay ee laynaga doonaya waxaa ka mid a waddada isu naseexeeya maaha dad toosh ku raadiya fadeexadooda oo midibaka kale uu leeyahay bal fashili si aad adigu u faa'iido laakiin way isu naseexeeyaan oo waxa ujeeddadu ay tahay midibaka kale inuu hanuuniyo ee inuu karkaarka weydaariyo hallaaba uma taagna waa ka nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ina addiina annasiixa diinta islaamku waaba tala iyo dan cid walba dan bay u tahay oo talay u tahay oo wanaag bay u tahay marka taasaa tilmaan u ahoo qofku markuu arko walaalkii oo ceeb iyo wax xumaana le wuu naseexaynaya wuu danaynaya si uu toosiyo waana dhaqanka awliyada ilaahay iyo ambiyaduba ay lahaayeen haddaad akhrido qur-aanka kariimka ah oo ka warramaya qisooyinka nebiyada naseexada iyo taladaa wanaagsan baad ka arkaysa nebi nuux baa wuxuu leeyay uballiqukum risaalaati rabbii wa ansaxu lakum waxaan idin soo gaadhsiinayaa ummad yahay fariimuhu ilaahay idiin soo dhiibay waanaan idiin naseexaynaya oo waxaan u taaganahay inaan idiin daneeyo nebi huudna waxa uu leeyahy wa ana lakum naasixun amiin anigu waxaan ahay mid idiin danaynaya taladiinna iyo nasiixadiinnana waan la socdaa marnaba idinma lugoynayo nebi saalix baa waxa uu leeyahay wanasaxtu lakum walaakin laa tuxibuuna annaasixiin waan idiin daneeyey oo waan idinla taliyey laakiin wixii idinla talinaya idaan jeclayn simaadka mujtamaca muslimka ah iyo tilmaamuhu leeyahay arrinta toddobaad waxa weeye mujtamacun tasuudu fiihi alcadaalatu walmusaawaa waa mujtamac ay sarrayso cadaaladdu si ay sinaansho u helaan alcadaalatu walmusaawaa markay dadku cadaaladda sameeyaan ayuu sinaanshuhuna yimaadaa almusaawaatu min hamaraati alcadl sinaanshuhu wuxuu iman karaa marka ay cadaaladi jirto haddaan cadaaladi jirin sinaansho ma yimaado marka arrimaha caamka ah markuu ilaahay ka warramayo cadaaladuna fara ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan waa si guudba ilaahay wuxuu leeyahy waxaan idin farayaa cadaaladda oo ah in cid walba xaqeedu ilaahay siiye la siiyo